iyadoo ay soo kordhayso cabashada laga muujinayo doorashada dalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku saabsan doorashooyinka dalka waxa magaalada Muqdisho ku qabtay waxgaradka iyo salaadiinta beelaha Soomaaliyeed waxayna sheegeen inay jirto faragelin lagu hayo doorashada Soomaaliya. Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad oo kamid ah salaadiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa sheegay in labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxa loo soo doortay inay tahay in dadka Soomaaliyeed doorashada inay u madax banaanaadaan. annaga haddaan Soomaali nahay gaalaha liidaha naga dhacay dib tiro badan baan soo maray waa qalimanaa hadda inaan soo cufanaan dareynayna dawlad baan dhisanaynaa baarlamaan laba gole oo golaha sare iyo aqalka sare loo sameeyay waxaan leenahay aqalada loo sameeyay baa annagu ka sugaynaa dawladdeena ninkii ku soo baxa madaxweynaha waxa u xil saaran labada aqal ayaga oo madax bannaan annaga ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan u madax banaysanay golayaashaas inay noo soo doortaan haddaan odayaashii dhaqanka nahay haddaan Soomaali weynahay in aan isku filaano annagu isdoorano waxaan la soconaa ama noo muuqata ama la sheegayaa faragelin shisheeye oo ugu dhex jirta faragelinta shisheeye oo aan dalkeena ahayn oo aan dadkeena ahayn oo nagu dhex jirta ma aqbalayno waxaan leenahay nadaaya waxaan United Nations oo caalamka meesha ururisahay waa jamcadda qurumaha ka dhaxaysa jamcadda qurumaha ka dhaxaysa waxaan ashkato ugu nahay inaan dawlad kale iyo cid kale midna aysan soo faragelin ay nadaayaan ay noo noqdaan waxaan security uga baahno iyo goobjoogayaal marqaatiyaalka saan isu dooranayno hadda waxaan maqlaynaa qoliyaha loo tagay ninba dawlad hebla wata iyo ninba meel hebla marayo waxa shaqo kuma lihi dawlad hebla ninka u tagayaya iyo cid uu dhanka kale Axmed Suldaan Cabdullaahi Axmed ayaa isna ku baaqay in wax laga qabto faragelinta shisheeye ee lagu hayo doorashada dalka Soomaaliya nidaamka dawliga gacanta ka baxay waxaad moodaa in dad kooxa oo yar oo maaragtay guruub ay wada tashi gooniya ay markasta ku dhawaaqayaan iyo iskala tashanaya dawladda iyo cadow aan ummadan u dhibrinayn marka in ummadan la difaaco wadanka la badbaadiyo halkan kulanka ka dhacay waa golaha wadaniyiinta Soomaaliyeed ayaa halkan isugu yimid waxaa loo baahan yahay marka in la difaaco wadanka anagu waxaan ku talinaynaa waxgaradka iyo uqaasha iyo meel walba oo la isu yimaado in maaragtay aan marnana shisheeyuhu inuu muxuu ahaa wadanka uu ka taliyo inaan lagu maaragtay aan la fiirsanin oo tali laga sugin uqaasha iyo culimada iyo dhalinyarada iyo dadka wadaniyiinta wadaniga ay soo baxaan inaan 9 nin iyo 6 nin iyo 10 nin aan Soomaali iyo dawladnimo laga sugin saas ayaan ku baaqaynaa waxaa sanadaha badan soo badatay dawlad heblaha u yeeraysa dawlad heblaha wadata dawlad heblaha soo dhisaysa waxaan ku baaqayaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaya beesha caalamka in ummadda Soomaaliyeed faragelinta laga daayo loona daayo mustaqbalkooda qarannimadooda dawladnimadooda dadnimadooda diintooda in lagu nabadgeliyo gaar ahaan dawladaha dariska oo sida tooska iyo sida dadbanba faragelinta ugu haya inay ka joojiyaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada oo midda ayaga dhexdooda ka jira ay ku xalistaan waqtiga iyo juhdiga ay gelinayaan anaga faragelinta iyo dhibaatadeeda waxaan ku talinaynaa in ummadda Soomaaliyeed gacanteeda lagu soo celiyo lagana bixiyo talada ummadda Soomaaliyeed gacmaha shisheeye waxaan ka digaynaa in aan dawlad dusha looga keeno ummadda Soomaaliyeed aysan anfacayn mid ayaga ka timaada oo wadaniyeed leh oo dadnimo leh oo diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda ka fakaraysa iyo dib u dhiskooda ayaan u baahanay oo baahnay wax kor laga keenay waxaan uga digaynaa beesha caalamka in ay arrimaha qusuusiga Soomaaliya faraha kala baxaan ay ku ekaadaan taageero kor joogto mid tasiilaad mid nabad ilaaliyan waxa la wixii kale ay natarayaan hana tareen laakiin ay noo daayaan mustaqbalkeega kulankan maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxgaradkii salaadiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo bisha soo socotay Janaayo lagu wado in magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ka dhacdo doorashada madaxweynaha ee kan baarlamaanka Ibrahim Cali Nuur wararka STN magaalada Muqdisho.